Laba ka mid ah xululka ugu awoodda badan kubadda cagta caalamka ayaa ku kulmaya wareegga afar-dhamaadka Koobka Adduunka 2026. Faransiiska oo doonaya inuu gaaro finalka saddexaad oo xiriir ah ayaa wajahaya horyaalka Yurub ee Spain, iyadoo kooxda ku guuleysata ay finalka ay la ciyaari doonto England ama Argentine. Faransiiska ayaa doonaya inuu noqdo xulka saddexaad taariikhda ee gaara 3 finaal oo Koob Adduunka oo xiriir ah kadib Brazil iyo Germany. Faransiiska waxay guuleysteen 6dii kulan ee ay ciyaareen tartankan iyagoo hogaamiyay Group I kadibna ka reebay Sweden, Paraguay iyo Morocco. Waxay dhaliyeen 16 gool ilaa iyo hadda. Kulankii Morocco, inkastoo Kylian Mbappé uu rigoore khasaariyay, haddana wuxuu dhaliyay gool qurux badan, sidoo kale wuxuu caawiyay Ousmane Dembele oo dhaliyay goolka labaad. Weerarka Faransiiska oo ay hogaaminayaan Mbappé, Dembele, Michael Olise iyo mid ka mid ah Bradley Barcola iyo Desire Doué ayaa noqday mid aad u halis badan. Tababare Deschamps oo tartankan noqonaya kii ugu dambeysay ee uu hogaamiyo Faransiiska ayaa maamuli doona kulankiisa 26aad ee Koobka Adduunka, isagoo jebinaya rikoorka uu horey u haystay Helmut Schön. Faransiiska ayaa sidoo kale ku guuleystay 4tii semi-finaal ee ugu dambeysay ee Koobka Adduunka, 3dii ugu dambeysayna gool lagama dhalin. Waxaa intaa dheer, kulankii kaliya ee Koobka Adduunka ay la ciyaareen Spain waxay ku adkaadeen 3-gool kadib markii ay kasoo laabteen gool laga hormaray. Spain ayaa leh rikoor wanaagsan kulamadii ugu dambeysay ee ay la ciyaareen Faransiiska, iyagoo badiyay 7 ka mid ah 10kii kulan ee ugu dambeysay. Labadii gool ee ugu dambeysay waxay ahaayeen 2-gool semi-finalka Euro sanadkii 2024, 5-4 semi-finalka UEFA Nations League ee 2025. Kulankii Nations League, Mbappé wuxuu dhaliyay rigoore halka Lamine Yamal uu 2 gool dhaliyay. Michael Merino oo shabaqa soo taabtay. Koobka Adduunka, Merino wuxuu noqday ciyaaryahaankii ugu horreeyay taariikhda ee bedel ahaan u dhaliya goolka guusha 2 wareeg oo xiriir ah oo knock-out ah. Spain waxay kasoo baxday Group H kadibna waxay reebtay Austria, Portugal iyo Belgium. Tan iyo Koobkii Adduunka 2018, Spain waxay lumisay 1 kulan oo kaliya 27 kulan oo tartamada waaweyn ah, iyadoo 14 kulan oo xiriir ah aan laga adkaan, isla markaana 9 jeer shabaqeeda ilaashatay. Tababare Luis de la Fuente ayaa guuleystay 12 ka mid ah 13kii kulan ee ugu dambeysay ee uu hogaamiyay Spain. Falanqeeyaal badan ayaa waxay aaminsan yihiin in Spain ay kubadda maamuli doonto, balse Faransiiska ugu dambeyn rigooreyaal ay ku gaari doonto finalka. Labada xul waxay leeyihiin awood sare, balse khibradda Deschamps iyo weerarka Mbappé ayaa noqon kara farqiga u dhexeeya labada dhinac. Haddii aad nagu cusub tahay, subscribe noo saar, waad mahadsantahay.